Assalaamu calaykum waraxmatullah. Qarnigii toddobaad ee miilaadiga waxaa ku faafay magaalada Maka sanamada, suuna buux dhaafiyey Kacbada xurmada leh. Waxay caasimad u noqotay shirkiga ka hor intayna caasimad u noqonin tawxiidka. Waxaa degi jiray qabiilkii lagu magacaabi jiray Quraysh, waxayna sidoo kale maamuli jireen Kacbada barakaysan. Mugdigaasi kadib, Ilaahay waxa uu u soo saaray nebi sida fariinta islaamka dhammaan caalamka oo dhan. Haddaba xaafad yar oo u dhow Kacbada xurmada leh oo lagu magacaabi jiray Shicabu Bani Haashim, isla markaana guri uu ka dhashay nin reer Haashim oo sharaf iyo maamuus ku dhex lahaa reer Maka, waa guriga Cabdulmudalib ayaa waxaa ku dhashay Nabiyullaahi Muxamed calayhi salaam. Nebi Muxamed waxa uu ahaa mid ku dayasho mudan xataa masaa'ibta, maxaa yeelay aabbihiis Cabdullaahi waxa uu dhintay bilo yar ka hor dhalashadiisa. Haddaba Cabdulmudalib aad ayuu ugu farxay dhalashada wiilkan uu awowga u yahay, wuxuuna u qaaday Kacbada dhexdeeda islamarkaasina ugu magac daray Muxamed. Haddaba muddo kadib waxaa loo diray baadiyaha reer Bani Sacad sidii ay caadada u ahayd Quraysh, si uu u soo barto faseexada luuqadda Carabiga. Ku dhowaad 3 sano kadib waxa uu ku soo laabtay Maka si uu u helo daryeelka hooyadiis. Haddaba xikmad uu Ilaahay doonay dartii hooyadii way geeriyootay isaga oo jira 6 sano, iyadoo isla markaasi ku wajahan Madiina kana soo laabatay meel lagu magacaabo Abwaa. Sidaasi darteed mas-uuliyaddiisa waxaa kula wareegay awowgiis Cabdulmudalib, balse daryeelkaasi muu sii socon muddo dheer. Keliya 2 sano kadib dhimashada hooyadii waxaa geeriyooday awowgiis Cabdulmudalib, halkaas oo ay mas-uuliyaddiisu dusha kaga dhacday adeerkiis Abudaalib, isla markaasina la noolaaday ubadkiisii 6 ahaa. Haddaba markii uu gaadhay Nebi Muxamed da'diisii 13aad, waxa uu ku daray adeerkiis safarkiisii ganacsi ee Shaam. Intaasi kadib markii uu gaadhay magaaladii Shaam, waxa uu la kulmay nin faaliye ah oo Buxayro la dhihi jiray, isla markaasina uu ku arkay calaamadihii nebinimada, isagoo u sheegay adeerkiis ugana digay khatarta ay Yuhuuddu ku hayso amaba ay u geysan karto. Markii uu gaadhay da'diisii 15aad, waxa uu ka qayb galay dagaalkii lagu magacaabi jiray Xarbul Fujaar, isagoo adeeradiis u diyaarinayay leebka. Waxa uu sidoo kale xaadiray Nebigu sallallahu calayhi wasallam heshiiskii lagu magacaabi jiray Xilfal Fuduul ee ka dhacay gurigii Cabdillaahi ibnu Jadcaan. Heshiiskaasi oo loogu gargaarayay xuquuqda dadka qariibka ah iyo dadka daciifka ah ee dulman. Intaasi kadib waxaa magaalada ku faafay sifooyinkiisa wanaagsan ilaa lagu magacaabay Muxamed al-Amiin. Isla da'daasi 15aad markuu jiray Nebi Muxamed, waxa uu bilaabay inuu shaqeeyo isaga oo adhiga u raaci jiray qabaa'ilka reer Maka. Isla markaasina isagoo ka hadlaya shaqada uu soo qabtay waxa uu dhahay Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam, ma jiro nebi alla uu soo diray ilaa iyo adhi waa raacay. Haddaba markuu gaadhay da'diisa 25, Nebi Muxamed waxaa Khadiija bintu Khuwaylid ay u dooratay si uu u raaco wiilkeeda ama uu u weheliyo wiilkeedii lagu magacaabi jiray Maysara isla ganacsigeedii Shaam. Marka uu ka soo laabtay wiilkii yaraa ganacsigii Shaam, waxa uu uga sheekeeyey Khadiija bintu Khuwaylid dhaqankii iyo dabeecaddii wanaagsaneed ee uu ku arkay intii uu Nebi Muxamed la sii socday jidka, midaasi oo keentay inay ka hesho Khadiija bintu Khuwaylid Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Sidaasi ayuuna ku guursaday, ay kaga mid noqotay amaba ay noqotay midii ugu horreysay xaasaskiisa, iyadoo u dhashay dhammaan carruurtiisa marka laga reebo Ibraahim oo ay u dhashay Maariyatul Qibtiyya.